kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeya Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaare Rooble oo la qorsheeyay in markaan uu ku wajahan yahay magaalada Geerida caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle ujeedka safarkiisa ayaan soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeya arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya guddiida ay kala magacaabeen Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare oo dhankiisa magacaabay xubnaha guddiga doorashada haddaba sidee loo arkay maxay safil Soomaaliya ka leedahay waan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashada Somaliland natiijada codbixinta sida ay u dhacday hordhaca la helayo ayaa sidoo kale daawo doontaan Abiy Ahmed wasaaraha dalka Itoobiya Geerida ayaan ka xigaa u yiri in aan wareejiyo xukunka dalkaas haddaba sidee loo arkay hadalkaas codsi ah oo lagu duubay wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaan soo gudbin doonaa kayana xaaladda ayaa ku xun barbaaxo culus ay markaan la kulmaysaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa iyo warar kale ee gobolka geeska fadlan haddii aad cusubtaas subscribe ka saaran gambale kana furo una share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumatiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aan ku bilowno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la qorsheenaya in maalmaha soo socda uu safar ku yahay magaalada caasimadda ee Hirshabelle halkaas oo la sheegay in ay si weyn ugu bilaabanayso arrimaha ku aadan doorashada Soomaaliya ee kuraasta halkaas ay ka soo galaya xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Hirshabelle ka soo jeeda waxaana maanta Hirshabelle gaaray madaxweynaha maamulkaas Ali Guudlaawe Xuseen kadib markii uu Muqdisho uga qayb galay shirkiga kooxda wadashada qarni arrimaha doorashooyinka Rooble ayaa la filayaa inuu biri gaaro magaalada Geerida si uu ugu gogolo xaaladda magaalada oo ku jirto go'doon daadadka ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale Ali Guudlaawe xubnaha laga sugayo inuu Hirshabelle soo magacaabo ee guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed safarkiisa ayaana si loo ogeyn marka laga reebo xogaha laga helayo oo sheegaya in uu u kurgalayo xaaladda bini'aadanimo ee ka jirta deegaanada maamulka Hirshabelle oo muddooyinka ugu dambeeyay hargeyay fatahaadaha webiga iyo sidoo kale dhibaatooyin rabbaani ah iyo sidoo kale dhibaatooyin xagga markaas maleeshiyada maxuusulay kaga imaanaysa madaxweynaha Hirshabelle Ali Guudlaawe oo dhawaan dagaal kula galay magaalada Geerida oo qaar ka tirsan ilaaladiisana markaas Ali Guudlaawe ay dileen maleeshiyadiisa oo weerartay dhinaca kale waxaa xalay ilaa iyo maanta socday dadaalada xooggan ay sameynayeen dhinacyada Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare kaas oo ah xubnaha guddiga doorashooyinka ay magacaabeen waxa ugu dambeeyay maanta gudoomiyaha aqalka sare Cabdulaahi waxa uu shaaciyay xafiiska wasaare Maxamed Xuseen Rooble ilaa iyo 6 xubnood kuwaas oo si rasmi ah ugu gudbiyay wasaaraha si ay u qayb noqdaan guddiga doorashooyinka xubnaha guddiga doorashooyinka kuraasta Somaliland ee uu soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare ayaa imaanaya kadib heshiiskii si siman loogu qalqeybiyay xubnaha guddiga isaga iyo mahdi guuleed qadar haddaba magacyada ay Cabdi Xaasho u gudbiyay wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay keeneen Cabdishakuur Daawud Maxamed oo ka tirsan guddiga FID Maxamed Ciise Hebe oo ka tirsan xalinta khilaafaadka Suleymaan Ciidiid Cusmaan oo ka tirsan guddiga SID Cabdishakuur Abiy Baxayir oo asna ka tirsan guddiga markaas SID Maxamed Cali Cabdulaahi oo asna ka tirsan guddiga SID iyo Jaamac Cumar Cali oo asna ka tirsan guddiga SID magacaabista Cabdi Xaashi ayaa imaanaysa xilli uu xalay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed wasaare Rooble uu soo gudbiyay isagana xubnaha maamulka Jubbaland ugu mid noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka Ahmed ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay 12 qofood oo guddida doorashada ku matala doona Jubbaland waxa uu sheegay inuu magacaabistooda uu cuskaday la tashiyo uu sameeyay iyo fulinta heshiiskii 12 September Cabdi Xaashi Ahmed ayaa noqonaya mas'uuliyiintii ugu horeeyay ee tallaabo lagu filayo heshiiskii maalmo ka hor lagu kala saxday magaalada Muqdisho kaas oo meesha ka saaraya midowgii hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya qaybihii hore ee janalkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ka saar gambale kana furo una share gareey saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kumatiga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana waxaa lagu dhawaaqay natiijadii ugu horeysay ee doorashada golayaasha deegaanka Somaliland taas oo 2 maalin ka hor ka bilaabatay dhammaan deegaanada Somaliland komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa si hordhaca u shaaciyay natiijada ilaa iyo 5 ka mid ah degmooyinka Somaliland taas oo lagu muujiyay sida ay u kala horeeyaan saddexda xisbi ee ka jira Somaliland doorashada Somaliland ka dhacday 31 bishii aan ka soo gudbay ayaa isugu jirtay doorashada mudanayaasha golaha wakiilada iyo deegaanka ee maamulkaas wuxuuna si hordhaca u shaaciyay
komishanka ilaa iyo hadda midda golayaasha deegaanka waxaana la filayaa in guddiga doorashooyinka ay shaaciyaan natiijooyinka kale ee ku aadan doorashooyinka qabsoomay isniintii middaas oo lagu muujinayo sida xisbiyada ay u kala guulaysteen xildhibaanada golaha wakiilada iyo deegaanka ee guud ahaan Somaliland. haddaba sidee baa loo kala guulaystay codbixintu xisbiyadu maxay kala heleen ilaa iyo degmooyinkee aan ku hormarno salaxley oo maroojeex ka tirsan waxaa ku hordamay 3 xisbi kulmiye ucid iyo wadani kulmiye ayaa ugu sareeya waxa uu haystaa 4 halka ucidna uu haysto 3 wadani ayaana kan labaad ama kan saddexaad ee haysta 2 degmada lagu magacaabo gar adag kulmiye ayaa mar kale ku horeysa oo 3-4 halka wadani 3 ay tahay ucidna 2 saylici oo oodar ka tirsan kulmiye ayaa ku horeedo 4 wadani ayaa soo kala 4 ucidna waa 4 halkaas waa laga wada suman yahay xudun oo soo ka tirsan 7 kulmiye ayaa ku horeeya xisbiga wadani ayaana 2 halka ucidna uu meesha ka maqan yahay lughayo oo oodar ka tirsan ayaa waxa ay u kala heleen shidatan kulmiye oo 5 wadani oo 2 iyo ucid oo 1 welina waa ay socotaa tirinta codadka kala duwan ee shacabku ay dhiibteen isla markaana mas'uuliyiinta maamulka Somaliland ay codayeen oo markaas ugu tilmaamay doorashadii ugu dimuqraadiyadeed ee ka dhacda deegaanada maamulka Somaliland markii ugu horeysay innaha caalamka ayaa isha ku haya oo weli la socda xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa guud ee deegaanada Somaliland hanaanka markaas loo tirnaa codadka iyo sida ay u kala helayeen musharaxiinta sida weyn ay u tartamayeen xisbiyada mucaaradka qaybiyada dhexe ayaa daawanaysa saaxiibayaal markaana Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo kulan gaar ah la lahaa hoggaanka sare ee xisbigiisa ee lagu magacaabo Prosperity Party ayaa lagu duubay cod halis ah kaas oo uu kaga hadlay mustaqbalkiisa hogaamineed ee waddankaasi Itoobiya Abiy ayaana codka laga duubay ku sheegay in doorashada soo socota ee dhacaysa 22 bishan ay ku guuleysan doonaan isaga iyo xisbigiisa haddii kalena uu dhiig daadan doono waa mid caalamka iyo si weyn ay u hadalayaan Geeska Afrika sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday inaysan jirin cid dhisi karta xukuumad ilaa 10 sano ee soo socota isagoo oo sii joogi doona xafiiska ayuu yiri hadalka codka sirta ee laga helay waxaan dareemaynaa xaqiiq la xiriirta walwal badan oo nooga imaanaya siyaasiyiin kooxo kala duwan ah iyo warbaahinta kuwaas oo doorashada u galaya si ay xukunka u qabsadaan aadna u doonaya meel kasta ay joogaan oo waa dhow yihiin waana fog yihiin ayuu yiri Abiy Ahmed waxaa kaloo intaas u raaciyay ma jirto cid awood u yeelan karta in dowlad ay soo dhisto 10 sano ee soo socoto geeri ayaana ka xiga intii aan xilka wareejin lahaa ayuu yiri iyadoo intaas kadib codka la soo duubay laga maqlay sawaxan iyo sacab isla socda Abiy Ahmed ayaa sidoo kale wuxuu codkiisa muujinayaa inuu ku shuban doono doorashada ka dhacaysa Itoobiya isagoo oo bogaadiyay kooxda ka shaqeynaysa tallaabada Itoobiya gaar ahaan wasaaraha uu qaaday ayaa mid halis weyn ku ah dimuqraadiyadda dalka Itoobiya waxaana uu gilgilay Itoobiya oo sanadihii u dambeeyay wajahaysay xaalado adag oo ka dhashay dagaaladii ka dhacay waqooyiga dalkaas gaar ahaan gobolka Tigray oo ay weerareen ciidamada federaalka Itoobiya dhinaca kale xafiiska wasaaraha ayaa ka hadlay arrintan wuxuuna sheegay in codka uu yahay mid la isku keenay iyadoo markaas la adeegsanayo cod kala duwan codka la maleynayo in laga soo duubay wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga iyo talada toddobaadkii la soo dhaafay codkaas waa mid been abuur ah oo sadiira toon aan lahayn waxa ayna xafiiska wasaaraha uu sheegay ciddii lagu helaa been abuurkaasi xafiiska wasaaraha laga baahiyay iyo wasaarahaba in ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan siyaasada dowladda Itoobiya ayaa haatan wajahayso xaalad adag iyadoo oo markaas ay ku kacsan yihiin qowmiyadaha qaar sidoo kalena ay u sii dheer tahay dagaalada ay ku jirto jabhadda TPLF oo markaas dhulka iyo sidoo kale cirka weerar culus uu kaga qaaday Abiy Ahmed gobolka caasimadda ee Maqalla halkaasina khasaaro culus oo ka dhashay caalamkana cunaqabateen uu Mareykanku ugu horeeyay uu ku soo rogayay guud ahaan daawadayaal waana inta wararka waaweyn ee Soomaaliya caalamka fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeena ka ah wararka subscribe ku saar gambalka furo wana share garay saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinkoo laagi commentigana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin